magaalada London Ontario waxay qiyaas ahaan magaalada Toronto u jirtaa ilaa 129 kiiloomitir. Waxay ka mid tahay magaalooyinka dhawaanahan ay Soomaalida sida aadka u degayaan. Muhiimadda koowaad ee Soomaalidu ay ugu guurayaan magaaladaasi ayaa lagu sheegay badqabka dhalinyarada gaar ahaan marka ay timaado dilalka. alxamdulillah ilaahay ku mahadinayna magaalada London waa magaalo sideedaba karaam yar tahay annaga dhalinyaro isdisha ama isdagaasho ama ku jirta gangs malihin ilaahayna waxaan ku mahadinaynaa ilaahay noo suura geliyay jaamacadaha u waaweyn oo wadanka laga jecel yahay sida Western University of Ontario ku taala kullajeen aad u macaan baa ku yaala iska warqabka iyo iscaawinta ayaa ah muhiimad kale dad waxaan nahay aad isku xiran oo isku jecel waxaan leenahay community association oo yiraahdo London Association of London Ontario community-ga jaaliyadda waxay ka qabtaan waxyaalo badan ay ka caawinaan waxyaalaha ay ka caawinaan waxaa kamid ah dadka oo soo galootiga ah waxaa loo sameeyaa soo dhaweyn dadka la barayo waxaa kaloo loo sameeyaa guryaha lala raadiyaa waxaa lala raadiyaa xagga legalka caafimaadka qolooyinka shaqada wax alla waxay u baahan yihiin laga soo dhaweeyaa guryaha lala raadiyaa haddii xataa u baahdaan mucaawino oo xag lacag ama xag oo supportin waa la siiyaa waxaan nahay Soomaali aad isku jecel oo maasha Allah isku xiran alxamdulillah waxyaalaha kale oo qabanay waxaa kamid ah magaalada waxay leedahay qabuur islaami ah waxaan ka iibsanay qayb oo wixii naga geeriyooday ay ku timaadaan ku aasano shuruud la'aan dadka ku cusub magaalada waxay la kulmaan caqabado u baahan in laga caawiyo si ay uga gudbaan Soomaalida uga horeysay magaalada ayaa u fidiya caawinaadaasi Soomaalida meeshan joogto dadweyne aad isku xiran aad isku jecel xagga markii la moodo meelaha kale oo meel badan aan soo maray North America marka waxaan moodaa in meeshan ay xiraantooda iyo isdhaqaaleentooda adoon lagu fiirinayn xagga ka timid iyo gobolka ka timid ee meesha tahay aad lagu soo dhaweynayo Soomaalida ku dhaqan London Ontario ayaa rajeynaya in ganacsiyo ay ka furtaan magaalada isla markaana ay dhex galaan bulshooyinka kale maadaama ay soo badanayso tiradooda